Asalaamu calaykum. Soo dhawaada asxaabta ku xiran kanaalka. Kaxaynta gawaaridu waa mid aad u adag oona u baahan sabir iyo maskax. Sidoo kale, darawalnimada ayaa shayga koowaad u baahan tahay wuxuu yahay geesinimo ama dhiiranaan. Sababtoo ah haddii aad ka baqayso inaad shil gasho, ogaaw markii dambe waad galaysaa. Ma ogtahay sanadkii 2013 oo keli ah 1.5 milyan oo dhalinyaro ah ayaa u dhinteen shilal ka kala dhacay caalamka oo idin. Waxaa shilal ku dhaawacmay wax ka badan 30 milyan oo qof. Hadda aan isla eegno waddan kale, wadada ugu xun ee gaadiid lagu kaxeeyo iyo mid ugu wanaagsan. Habka koowaad ayaa ah tirakoobka tirada dadka dhinta sanad walba markii laga eego 100,000 oo qof walba. Waddooyinkaas waxaa kaalinta koowaad kaga jira waddanka Liibiya oo haysta tirada gaarayso 73.4 marka la eego dadka u dhinteen shilalka ka dhaca caalamka. Kaalinta kale waxaa dhigay dalka Mareykanka. Waddanka Mareykanka oo haysta 10.6 marka la eego dadka ku dhintaan shilalka ka dhaca caalamka. Norway ayaa ka gashay 2.2 marka la eego dadka ku dhintaan shilalka caalamka, iyadoo lagu tiriyo waddanka uu yahay wadamada waddooyinka ugu ammaanka badan ee caalamka. Haddaba, waxay iga sugaysiin wadada ugu khatarta badan. Waddanka Bolivia waxaa ku taala waddo la dhahaa wadada dhimashada, sababtoo ah shilalka ka dhaca iyo dhimashooyin fara badan. Balac ahaan markii la fiiriyo, wadadaas ayaa gaaraysa 3 mitir. Sidoo kale, waxaa wadada ku taala buur dusheeda. Wadada sideedaba ma lagu talagelin in lagu kaxeeyo gaadiid xamuulka. Inta la hagaajinin wadadaas, waxaa ku dhinteen dad gaaraya 60,000 oo qof. Wadada Bolivia ayaa heerkulkeeda noqda mid aad u sarreeya, marmarka qaar ayaa noqda mid aad u hooseeya. Waa ku mahadsantahay daawashadan. Fadlan haddaad nagu cusub tahay nala saaxiib. Videogan haddaad ka heshana like garee. Waxaad noo reebtaa comment si ay u noqoto dhiirigelin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.